caafimaadka sida bini'aadamka oo muhiim nolosha ugu tahay haddana ee farxadda qofka inuu noloshiisa farxad geliyo ka fogaado waxyaabaha hoos u dhigayo oo farxadda ka hor istaagayo saas muhiim ugu tahay marka haddii aad tahay qof xanuunsan oo caafimaad darro ay hayso waxaa laga yaabaa murugo inaad ku jirtid in dhibaato ku haysatay muddo aad la nooleed laakiin ogow rajada mar walba way jirtaa waxaa jirto maalin un ayay iska imaanaysaa rajada marka dhinac waxaa fiican inaad ku fikirtid in waxaan wax gaaban ay yihiin oo aad maalin ka bixi doontid inaadan luminin rajada waxa waaye xag minallahi ka imaadaa laakiin adigana inaad niyadaada aad ku haysid in fursadda mar walba iska imaan karto oo farxad aad heli kartid haddii duruuf shaqo la-aan ay ku hayso kaleetood oo culays dhinacaas kaa saaran yahay maalin inaad ka bixi doontid balse adigana aad bilaawdid initiative aad la imaadid oo aad wax isku daydid haddii caafimaad darro ay ku hayso insha allah maalin aad caafimaadi doontid haddii amuuro kale isaga kaa xirxirnaay oo dhibaato dhinacyo kale kaa haysatay in mar walba aad wax fiican kheyr aad rajaysid marka ha luminin maxaa la dhahaa shakhsiyadaada ha luminin xaaladda aad ku sugan tahay shakhsiyadaada aysan luminin mar walba kheyr rajay qosolku waa caafimaad wuxuu ku siinayaa energy fiican oo ku siinaya markaa qoslaysid oo aad niyadda ku dhisan tahay si kastoo ha isdhiibin noloshaada ha isdhiibin iska faraxsanaaw qanacsanaaw inaad qanacsanaatid adiga keliya dan kuguma jirto dadka aad la nooshahay kaa agdhow bey-adaas iskula jirtiin way saameynaysaa marka marxaladda aad ku sugan tahay qofku waa bini aadan maalin wuu murugeysnaan karaa wuu faraxsanaan karaa way ka jajabi kartaa wax weyn ma ahan laakiin mar walba waxaa fiican inaad positive ahaatid oo aad ku talagashid waxaan nolol inay tahay noloshan waa jaamacad qofaan soo jebinne ma kaco ma fahamti haddii maanta adiga ay kaa jaban tahay haddii aad faraxsan tahay tareenka saas maalin walba ma ahaada ma fahamti saas uma socdo waxaa jirto waa jireena ma fahamta nolosha waa saas laakiin waxaa la isku dheeryahay iimaan iyo qofku inuu ku qanco waxa uu haysto waxa ilaahay siiyey kheyrkiis waxa uu haystana uusan ugu caroonin dad waxaa jira jealous ah oo qof kaleetood markay arkaan horumar sameynayo kaleetood u arka nolosha qofkaas inay ayaga waxa ku tahay dhibaato ku tahay qofna noloshaada dhibaato kuma ahan adigana ha ku noqonin marka qofkii wax adiga ku dheer ilaahay ha u siyaadiyo waxa kaa maqan adigana ilaahay ha ku siiyo marka